aad iyo aad in qaranka hadduu baahidu ay timaado in wax loo qabto waan ku qasbanahay. midda labaad waqti waxaa lagu jiraa maaragtay food la gelayo oo campaign badan loo baahan yahay. waxaan u arkaa in maaragtay loo gartay in aan campaignkaasi xisbul xaakimka aan maaragtay xoojiyo. waqtiguna uu iska qorayo hada waa saacad qorano tii ilaahina meeshay taallaa. marka anigu waxaan u arkaa in shaqo qaran laga maarmi waayo mal arkaa. waan wadi taasi maaha xisbiga kulmiye lixda gobolba gobolka awdal oo kaliya kuma koobnee isagoo gobolka awdal aan ka soo jeedo. gobolka awdal waad arki doontaan maalimaha soo socda dadkii gobolka awdal dhammaan inta ku nool iyadoo aan kala qaadqaadayn. ilaa xalay waxa aan telefoonka ka seexan waayey. maantana waxaan filayaa in ay taageero weyn ay xusbiga iyo maaragtay doorashada xagga maanta la igeeyey ay aad ugu farxeen. gobolada kalena waan ka qabaa iska daa awdal oo keliya inaan wax badan ka soo hoyn doono. horta waa mid wax loo xidhimaysaa ma jirto waxay kordhisa mooyaane way ii fiican tahay in aan maaragtay daqiiqada u dambaysa 3 bilood baad ka hadlaysaa maxaan kula aan ku soo biiro way aniga waxay ii tahay nin aan marka hore dawladdii way socotay wala la isku maahayo nin loo baahday in uu maaragtay meel mugle dhiibideedo haddii maanta la yidhaha wasaaradda maaliyadda lagu dhiibay macnaha ayay samaynaysaa maanta ma jirto. waa waqtigu waa gabaabsi. waxaan u arkaa in baahi campaignka loo qabo. baahida campaignka ana tii hore hadday ahayd iyo tan hadday ahaydba waxa weeyaan haddii baahi ay timaado qaran baanu shaqaynaynaa. qarankuna inaan ka sinaano weeyaan. waxba ay soo kala gaadhay ragnimadayba ku jirtaaba dee inay raggu maaragtay wax isku qaban karaan waxna kala goosan karaan waana lagu mahadnaqayaa. kolley waad ogtihiinoo dee 2 xisbi baan ahayn hardliner baan ku ahaa. maanta waxaabaan u arkaa dimuqraadiyadda inay inooga dhawaayeenba oo ay keeneenba raggii maaragtay highlandka isku hayeen in maanta la yidhaahdo kaalay maanta inkastoo ku jirayba dee waayahan dambaba oo aan xisbi xaakimka farad ranarka ka ahaa dadka campaignka u waday maxaan ku lahay Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Sayid labadaba aan dhabarka ku sitay ana sidii doono haddii la dhiibin lahayna taawun baan ahaa tiina imikana waxay guul ku sii daratay anigoo maaragtay dee magacii maamuus sii wada inaan galo madaxweynaha. marka ilaahay baa horta mahadiisa le marka dambana madaxweynaha isaguba gartay anagoo maaragtay isku ahayn